golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka maamulka gobolka Shabeellada Dhexe heer gobol iyo heer degmo ururka haweenka gobolka Shabeellada Dhexe heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan odayaasha tuulada Baarey iyo Geeda Berkaan guud ahaan intii goobta ku sugan waxaan idinku salaamaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam alla waxaan ka baryaynaa dhibaatadan iyo culayska jiro inuu ilaahay noogu bedelo fudayd ummaddaanna dhibaatadan uu ka qaado maanta waxaan booqasho ku nimiday tuulada Baarey oo aheeda meeshay buuqdi ugu ballaareed ay ka baxday laba boqo waaweynaa waxyeelaysa gobolka Shabeellada Dhexe sanadkan mid mooyka ka baxday iyo midda Baarey nasiib wanaag waa lagu guuleystay midda mooyko laakiin dhibaatada ugu ballaaran midday ka dhacda waa midda Baarey oon maanta booqashada ku nimiday waxay baabi'isay dalagii waxay baabi'isay deegaankii dhamay tuulooyinkii oo ugu weyn tahay tuulada Baarey iyo 25 tuulo kale hore u maratay waxay maanta gal u haysaa degmada Balcad iyo degmada Jowhar oo dhamaysay oo biyihii wixii beerahay hore u qaadeen waxaan leenahay intii maaragtay deeqoodi ku weysay ilaahay bedel khayr ha siiyaan leenahay runtii dhibaato bini aadanimo mid weyneeda ka jirto sidaad wada ogsoonaaba dadka jiinka webiga degaa noloshooda waxay ku tiirsan tahay beerahay ku tiirsaneeday qof beerta ay iidu leedahay tacbato iyo qof xoogeeda u aado jibaalka soo falatay ahaayeen ninkii wuxuu tacbanaayeen dalagii waxa qaaday dadkii yaa qaaday kaydka guriga waxaday u yiileena tuuladii biyihii yaa qaaday dadkii xoogsatada ahayna oo jibaalka maalintii soo falana jirana jibaal la fasha maanta ma jiriyo oo dhulka biyaha ku jiro xaaladda dadkan ay ku sugan yihiin waa xaalad bini aadanimo mid ugu adkeed waaye labada dhinacsad u jeedinba biyaha ka jiro waxay miciin budeen buurka webiga oo magaaladina biyo ay ku jiraan dhinaca kalena webiga uu ka haayo inta yareedo webiga labadeedkiisa ahayd ay ku nool yihiin runtii qofaan arkin dhibaatada meeshaan ka jirto looma sharixi karo ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay dhibaatadan ka qaado waxaan baaq dheer u diraynaa cid kasta gacan ka geysan karto dhibaatada meeshaan ka jirto oo isugu jirto dhibaato nololeed mid caafimaad iyo mid cunto iyo biyo iyo guud ahaan ummadan meeshay ka gili laheeday roobka da'ayo iyo qorraxda iyo kaneecada xaqiiqdii waxaa taala meeshaan dhibaato bini aadanimo mid ugu cusleedaa taale cid kasto oo wax awoodo inay la soo gaarto dadkaanan ugu baaqaynaa hadday tahay hay-adaha caalamiga iyo hadday tahay kuwa localkaaba in wax lala soo gaaro hadday tahay dawladda dhexo iyo hadday tahay dadka muxsiniinta ilaahay wax siiyey oo gacantooda wax ku jiraan runtii meel wax lagu bixiyo meesha ugu khayr badneed waaye dadkan xaaladooda meeshay joogto waa dad noloshay ku nool yihiin markaad aragto aad dhihi karto xaqiiqdii dadkaanu xaalad adagay ku jiraan ee waxaan leenahay cid alle ciddii wax la soo gaari karto haba yaraata inay la soo gaarto in ilaahay adduunya aakhira labadaba ku liibana waxaan leenahay dadka waxaystow meeshaan xaaladaa ka jirto annaguna insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan awoodno waxba kama hagarsan doonno maanta waxaan u keennay xoogaa raashina iyo xoogaa daawaa iyo agabkii roobka laga geli lahay wax ka mid a laakiin wax badan kama taraanoo dhibaatadu aaday u baaxad weyn tahay waxa aan keennana ma kala gaaraana waxaan leenahay cid allaale ciddii wax gacanteeda ay ku jiraan waxaan leenahay ummaddan ha loo soo gargaaro allah wax gargaaree ilaahayna ha ka bixiyo runtii ciddii wax sidaqaysaysa meesha ugu habbooneed waayay nolosha ka jirta tuulada Baarey iyo tuulooyinka kale oo ku dhadhaway biyuhu ay hore u marteen waa dadan xoolo u soofayn waa dad gurigoodii iyo wixii ay haysteen biyihii qaadeen ee geed hoostiis fadhiyo hooyo maaragtay cunug gacanta ku hayso ama uur leh ama nuujinayso ee roob ku da'aayo geed hoostiisna joogto waa dareemi kartiin kaneecana ay habeenkii cunayso xanuunka ay leedahay cid kastee wax awoodo ha ku sidaqaysato ummaddaanaan leenahay ilaahay ma aragtay iigana ummaddaana dhibka allah ka qaado runtii waa ugu mahad celinayaa dadaalkoodana waa guubaabinayaa dadaalka ay muujiyeen akhyaarta tuulada ee labada tuulo odayaashooda ee Baarey iyo Geeda Berkaan isku duubnida iyo dadaalka ay dadaaleen markaan u keenna agabkii wax lagu xiraayay oo loor leh oo qalabkii birta ahay leh oo alwaaxi leh oo muxuu ahay xararkii leh siday ayaguna xoogooda ay u noola garab istaageen runta waa uga mahad celinayaa
guud ahaan waxaan ugu baaqayaa cid kastee wax awoodo ha la soo gaarto tuulada Baarey iyo tuulooyinka ku hareersan ee dhibaatada ka jirto annaguna insha Allah haddii la raalli ka noqdo garab istaagaynaa si nabadgelyana waa ku gaarsiin doonaa tuulada ciddii wax ku sidaqaysanaysa dadkaas aad iyo aad u mahadsantihiin gaar ahaan waxaan rabaa inaan baaq gaar aan ugu diro dadka muxsiniinta ah ee wax haysto gacantooda Ilaahay wax geliyay sida Hormuud oo kale iyo Dahabshiil oo khayr looga bartay oo meel kasta dhibaato jirta u gurma jiray runtii meeshii wax lagu bixiyo maxay ugu habooneedaan maanta joognaa dadkan waa dad tacabkoodiina biyo qaadeen noloshooda dhan ay ku tiirsaneeday yaanbay maalinka qaataan meel ay u qaataanna aan lahayn gurigana biyo ka galeena waxaan leenahay cidda wax awoodo ha la soo gaarto annaguna insha Allah waa garab istaagi doonaa baaqaas gaara waxaan ugu diray Hormuud iyo Dahabshiilna waxaan ku barannay inay meeshii dhibaato ka jirto gacan ay gaarsiin jireen gacan khayr qabta ay gaarsiin jireen dadkan waxay u awoodaan ha soo gaarsiiyaano guud ahaan cid kasta wax gaarsiihaysana insha Allah haddii la raalli ka noqdo waa garab istaagaynaa gacan aamin ahaana ku gaarsiin doonaa wixii ay noogu dhiibaan akhyaarta tuuladana waxaan iyagana si hoose ugu la dardaarmaynaa wax alla wax idin soo gaaro ay ka mid tahay deeqda biriga taallo in loo fiiriyo dadka siday u kala nugul yihiin siday u kala tabaryar yihiin loo siiyo cadaaladna wax lagu qaybana waa idinkula dardaarmaynaa alla waxaan ka baryaynaa in culayskan fudeed oo noogu bedelo dhibkana ilaahay ummaddan inuu dheef ugu bedelo insha Allah haddii la raalli ka noqdo guud ahaanna wixii sanadkan ka dambeeyo waa isku tasha doonaa waa garbahan isqabsan doonaa inaan dhibaatadan oo kale nugu soo naqano ilaahay waa ka baryaynaa annaguna waa wada dadaalaynaa saan fatahaadaan nugu soo naqatay aan wax uga qabanayna waa isu kaashanaynaa inta dhimanna ilaahay ha noo fududeeyo insha Allah waxaan rajaynaynaa Allah waxaan ka baryaynaa nabadgelyo iyo caafimaad iyo dhibaatadan nugu soo naqatay oo alla naga badbaadiyo ballantaynuna waa inaan iskaashanno sanad dambana dhibaato biyo inayna nagu dhicina ilaahay ka rajaynaa annagana aan xoogayna isugu geyno sidaan fatahaadahan wax uga qaban lahayn aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu